wasiir ku-xigeenka ma yahay ya siduu doono uma hadli karo sababtay ta shabeello waayo waxaa la leeyahay adigu shiidlamatiida maxaa ku galay maxaa inta ka taadiga go Ethiopia go xuduuda hadda ma fahmaysa there is a problem this problem exists nin shambara ah oo may ku hadlaayo haddii maanta uu difaaci maaga sheego oo macni uu runta u sheego uu yiraahdo warnimo siyaasiyiintiina ceymo iyo fiiri afka kuma dhufan karaan daaba suusow sidaan yeeshay ceymo yaa sheeshay saas maryan makaraan ma dhihi karaan sidaan u dhahayno sababtay tahay waxaa la leeyahay adigu mashunguliya tahay maxaa ka galay eelayda la degtay adigu shambara tahay maxaa ka galay eelayda la degtay bal siyaasiyiinta hadda ma arkaysa sheego dubatay runta markaan ku sheego hawiye oo digil iyo mirifla duulaan ku ah hawiyaha kuwana uga dhib badan ma malaysaan laakiin hawiyaha digil iyo mirifle kuwa shiidlaha siyaasiyiinta matalaya nacaybka ay raxweyn u qabaan iyo sida loogu dili karo macnaheedu hawiya roon kuwa ka ku dilay iyaga waay kuwa la soo adeeg dhulkoodana hawiya dhacaya doogo shacabka ma sheegay laakiin siyaasiyiinta sheego hadda gatay ee dilay waa the most dangerous against macnaheedu my speaking ama shambaraha noqdo ama digil iyo mirifla noqdo ama biimaal may ha ku my speaking way ku labalaboodaan I tell you that cadaaladu waa iyagu waxay dhan cunsuriyadana lagu hayaa no meesha ay wax ka qaldan yihiin ku sheegay meesha ay wax ka qaldan yihiin ku sheegay dhulkan ay degan yihiin waxa weeye hawiye shalow yimaaday waxa degan eylo oo digil iyo mirifla eyle meel ay ka soo gasho ma jirto haba yaraatay jareer weyne this we have to know Soomaalida waa inaan bara eylo ma noqon karto qabiil kale ma noqon karto waa digil iyo mirifle hadda ma fahmaysaa marka waa in la kala saaraa xagee dadkan tawfiiqda ay kaga xumaatay xagee iska waafiqi la yihiin we have to know waxay iska waafiqi la yihiin rag baa hor taagan magac beenana waa loo dhiibay haddii jilic weyne uu jiro jareer weynena uu shaqayn karaa haddii jilic weyne uu jiro ereygan marka jareer weyne dadka maanta jareer weyne dhahaye dhalinyarada ah iyagu isma oga way ku dulman yihiin iyagu jareer weyne maaha qabiilo waay dadka okay yaa u keenay siyaasiyiin iyaga ka dhashay ayaa hawiye la hoos orday qabiilaadkooda ku bedelay magacii kow Soomaaliyeed markii hore ururay la baxeen sheekh jaamac ali jira gadaal ugu noqday bila Soomaaliya joog jiray ay did markuu joogay meel walba lagu duulayana ciidamada jareer weyne isaga soo ururin jiray jareer weyne ma jirin markii ugu horeysay jareer weyne hawiya soo alifay sheekh jaamac loo dhiibay wargeys saddexaas xamar ka soo bixi jirtay kan afraad laacib waa laacib aamina muuse wehliye gabar ay dhahaan oo hartay abgaal aan u malaynayo ayaa wax ka qori jirtay oo riwaayada markii dambe laanta BBC-da ninka baabaansho istagaaleen wargeys waxa la jiray ayaamaha ayna shamsi ka soo horjeedkeeda lagu qori jiray maxamed xaajin ingiriiskan iyo ayaa markaas meesha lagu barbarahay wargeys waxa la jiray qaran waxa lagu qori jiray inta u dhaxaysa Baarwax iyo Black Sea wargeysna waxa la jiray xog ogaal la kadaalika saddexdaasi wargeys habar gidir baa maamul jirtay salbalaan afkooda ku hadli jireen laacibna waqooyiga muqdisho ciyaaruhu ka soo bixi jiray wargeyska macnaheedu muqdisho qaran iyo ayaamaha iyo xog ogaal ayaa markii ugu horeysay lagu soo qoray markii magacaan la sameeyay gadaal ugu noqon siyaad bar markuu jiray jareer weyne xagee ku taalay adi hadda ii sheeg siyaad bar daarood wuu jiray hawiye wuu jiray bandhawo wuu jiray madhibaan wuu jiray cali samatar baa ahaa wasiir madaxweyne ku-xigeen gaasha Soomaaliya wasiir gaashaandhig hadda ma fahmaysaa dir way jirtay isaaq wuu jiray hawiye wuu jiray abgaal wuu jiray habar gidir way jirtay laakiin jareer weyne macni meel ay ku qoran tahay dukaankii jareer weyne xaafadihii jareer weyne degmooyinkii jareer ma haysaa waa loo sameeyay marka magacaanaaba ku dulman tihiin falsafadana dadkii samaystay aakhirey aadeen kuwii loo dhiibay ee idinka dhashayna beenaa loo sheegay kuwii soo sameeyayna
dambay kala haayeen iyagay ku soo qalloocatay shirki Djibouti ee Ambagati xero Doofaarey ayuu ka shaqayn waayay laga bilaabo maantay Soomaalida nadiifka ah jireer weynaha dadka ogolaaday in loogu yeero waxaan idinku baaqayaa xornimo haddaad rabtaan riyada beenta ah iska dhaafa no way jireer weyne qaaradda Afrika oo dhan ma adiga macnihii xukumaysaa ma shaqaynayso jileec weyne ma shaqaynaysaa Soomaaliya qowmiyadda maxaa tiri dadaa wax ku waayay baraha ku qabsan waayay annagaas hadda waxaan socodsiin weynay qowmiyadda maayizamka waxa ku qaadi weynay because maay haddaad tiraadid raxweyn kaliya ma ahan maay waa luuqad maxaana waa luuqad qabiil walba maay ku hadli kara daarooda maay ku hadli kara dira maay ku hadli kara dan wadaaga maay ku hadli kara macnihi hawiya maay ku hadli kara digri mirifla maay ku hadli kara maxaa qabiil ma ahan maxaa haddaad tiraadid macnihi hawiya ku hadli kara digri mirifla maxaa ku hadli kara waa kan aniga digri mirifla ku hadlay maxaaga macnihi dirba maxaa ku hadli kara ma arkaysa dan wadaag ba maxaa ku hadli kara daarood ba maxaa ku hadli kara waxba kuma keenaysa marka waxaan sheegayaa in aad u soo noqotaan shabeelle aawe dal iyo dibad shabeellow waxaan ku goynay tuulooyinkaas inaad soo xoraysid hubkaas inaad keentid miiska shabeellanimo inaad ku soo istaagtid orgaanatigiinii okay ma arkaysa macnihii makane aawe intaasoo boobayaalaan u baahanna intaasoo tuulooyin waa inaan ka xoraynaa cidda soo hajuuntay oo hore nooga qabsatay shiid lami ahaa waa intaas macnihii aad keentaa shambara mi ahaa intaasi waa in tuulooyin aad xoraysaa mashunguli mi ahaa intaasi waa inaad xoraysaa kabola miya intaas sidaasi marka qabiil ahaan aad isu abaabushaan waa sida aan ku soo guulaysanay waa annaga haddaan digli mirfilnahay markaasi organitidiinni way isku xirmaysaa qofkii la taabta marka tusaale haddaad tiraa jareer weynaan raadinaa adoo hadda timaaga adag yahay haddii cunug jileeca aad dhashid ilan dadka ilaaha abuuree cunugaasi jileec weyne muu ku darsamaya oo la qaybsanaya ma shaqaynayso hadda ma fahmaysaa ma shaqaynayso waxa shaqaynaya Soomaaliya ka shaqaynaya qabiil waaye runta ma ku sheegaa qabiilaa shaqaynaya annagoo reer shabeelle ah haddii aageena la soo galo hawdaan kicinayna laakiin koo jareer weyne xagga lagu dilay who's jareer weyne you do not know who's jareer weyne I don't know jareer weyne Tanzaniana ma Somali ba ma Nigeriana you cannot differentiate haddii kelmadda jareer weyne la fasiro laakiin haddaad tiraadid nin shabeelle ah ayaa waxaa lagu dilay baar ubax yaa dilay habar gidir Saleebaan baa dilay wadada uu soo maraya waa taqaanaa Saleebaan iyo waxa wada hadlaaya shabeelle not in jareer walba loo dhibaatay not nin walba oo macni jileec in loo dhibaatay ma shaqaynayso sidaasna adinka ku dhimanay haddaad dhahdaan nin walba oo jileec aan la dagaalamayna waa dhimanaysaan gurmada Soomaali kaga meelaysaan laakiin haddii idaacadda ay soo istaagtid aad tiraadid war annagoo shiidle ah deegaanadeena lagu haystaa tuule hebel waxaa lagu haystaa qabiil hebel haddaad tiraadid adigii nafsadaada cunsuriyad kuguma jirto safkii Soomaalida ay wax ku kala qaybsanaysa qabiilkaas soo gashay waxaan rabaa in runta aan u sheego xalka kaliya aad ku guulaysan kartaan bacdallahi waa kaas haddaydan sidaas yeelin oo falsafada macnihi awal hawiye uu idin sameeyay oo uu rabay inuu dhul ku qabsado haddana ay ku xumaatay ay ku daba gadoontay oo falsafadaasi dadkii la qaadsiiyay macnihi maanta dhab u qaatayna la dilaayo dad idinka dhashana loo adeegsanayo waxaan rabaa inaan ka guudhaan xumaan u qaata hadalkeygii ama wanaag u qaata shirab annaga aan soo shirabnay waa hadda ma fahmaysaa wixii may ku hadlaba annaga aan dhahnay laakiin mayga kuwa daaroodaaba na dilaayayba kuwa hawiyaa na dilaayay ha waana mayna ku hadlaayeen laakiin markii dambe waxay noqotay adigaa tahay anugu dhex jirtide who are you ma eelaayaa tahay ma dabaraa tahay ma laysaanaa tahay ma hariinaa tahay ma jiroonaa tahay ma macallin weynaa tahay ma shanta caleemoodaa tahay waa inaan ku naqaanaa oo wala weyn maxay ku xorowday meel kale haddaan ka soo qaado shan caleemood baa macnihi qabiilnimo u istaagtay laakiin ma waxay dhaheen nin tin adag iyo nin tin jilicsan may dhaheen no
doesn't function Soomaaliya kama shaqaynaysa falsafadaasi okay Soomaaliya waxaan ka shaqaynaynin jareer iyo jileeca loo kala miirmaana kama shaqaynayso ana runta ku sheegay yaaba yaan lagu dugdugin Soomaaliya qabiil baa ka shaqaynaya ilaaha Soomaaliya laga yaqaano waa qabyaalad iyo qabiil iyo qoriga foodis kumana midoobi karta jareer weyne annagoo asaf galayna may iskuma raaci doontaan jileec weynaan la dagaalamayna waa dhamaanaysaan because jileeca nafsadiisu waa inuu garab idin siiyaa haddii qabiil aad tiraadid garab aa ka helaysaa haddaa qabiil aad tiraadid war annaga reer hebel macnihii qabiil hebel aan haysta waxaa laga yaabaa qabiilkaasi qabiilka la dhashay inuu ma arkaysa ku soo garab istaaga haddii lagaa gardaran yahay kabishi mise ma fahmin marka xalka wuxuu ku jiraa waxaa tihiin dad dulman oo laakiin adinkana isdulminayo man daliil waxaa daliil u ah adinka oo beerihiin lo lagu sii daynayo janankiinu xabsiga macnihii ku jiro lagu dhibaataynayo ayaad idaacadda taagantiin dhibaata ma jirtaa leedihiin cisbitaalka xoogga lagu aasaya sida shaashaha uu sheegay sidee nin burcad ah ku tilmaantay sidee nin tuug ah ku tilmaantay sidee nin xaaraami ah ku tilmaantay generaalnimo laga qaaday aad tiri ciidamada waa laga saaray aad dhahday sidee haddana aad u leedahay qabuuraha ciidamada xoogga lagu aasaya seed u leedahay waa runtii shaasha impossible macnihii qofkan tuug waayaa leeyahay ciidanka mar hore laga saaray dil toogashaaba lagu xukumay how sidee marka haddana macnihii ninkan ehelkiisii lama siin karo meydka ninkan xero ciidan baa lagu aasayaa seed ku leedahay walaalkiisii la dhashay intuu ku maqnaa 2 sano annaga markaan dhawaaqaynay hadda anigu ma ahi shiidle ma ahi shabeellana ma ahi shambara ma ahi makana ma ahi waxaan ahay nin digil iyo mirifle ah mirif